صدح ميلود الدمر كرقة تصان لكن أنا ركو حوق فلي أنا ركو حوق فلي بركو فلان دمر ما له ركو تصيا والله كل بريدو كتير صدح ميلود ما عندي إلا تصيا أنا لكن واحد قيمة أنا أقول فدي كل بريدها بدي قبل ما قالوا كويس بيت واستقانا والله شيء استا مقالة يتمي هبين كورنا بالقراعة هادنا وادنا مرقات قراعة قبل ما قالوا كويس وكويس بتاعي وادتك لا قالوا وهادنا قراعة آخر كي والله مركا قبط حاط سمين لاي أنت لمرك مركا قبطه أنكور الله دولا لمرك ما حد يقبل ويدبنا صاك حين لا حافظ إلى الميلكين لا حبلان أوران لا يعني لا ساعة هبين كا رورتنا قاعد عن صارنا تطبطنا كنت إنا دعوانية أيام مركا قراعة استهم مقلين يا حمام بدقوا ذيك بحدو راح تقعد على سكدرك وارعين سكدرك ما شرت هبلها قروح بدن واديقسين وهبلها كلوا كديقسين سببتان إني شيء يدو طبعاً كنا هذا طبعاً هكون ميل بتقود عنسا وأي واحد وقتها هدي عاوة أي قف كتا أي صدر نو صدري الله كوا كلام حاطم كوا كلامنا در ديب إلهي بأمغان لا مدرا لكن هبلها قروح بدني وحلو جايين ديقسين ووضو وانت ساق شك بحث بدل دوح اللي يري قبل قروح بدل شغل ما ويدو وأروي ويدا أيها أوران هاي سكمان رحمة استغفر الله حكيت لما سجى ورفع صدح ميلود أي دمركم رجع كقيميان صدح ميلود دمركم رجع كقيميان مركي أركان وحكم إذا تيمه بين بدنا كأول مركا كأول مركي ساقوي أكتر ركع عجية تيمه عجية عجها يكبه يجيس أي صدح ميلود كله كقيميان jirto kale hablo badan oo inta sawirkaaga soo dhigtaan WhatsApp oranaya walaal iyo wehelba waxay uga jeedaan adigu waxba ma tiida qof kale aan la sheekaysto adigu waan ku ixtiraamaa been badan laakiin kulama sheekaysto de ixtiraam gaar ah ku haysa waxa la yiri dumarku ninka jilicsan way ixtiraamaa ninka qalabsan way jecel yihiin وما مهني وين أنا حالسمين حلوة تونس ما له gabadha wax baratay aan guursan ee shaqaysata waxay ku oranayaan way guursan weyday guumeys bay noqotay bal aan hablihii laale ka afar caruur ay leeyihiin ta guursatana waxay ku oranayaan may shaqaysato may wax barato guur bay ku degdegtay inan yar bay iska raacsaanta xabuubta iibinaysa waxay ku oranayaan caruurteedii bay ka tagtay caruurteedii oo dhan ma baqtiyaysa iyaduna maanta dhan xabuub iibinaysa iyo Soomaaliya meel loo raac garan maayo beri baa gabadh baa waxa gabadh dhagala oo qurux badan oo de laga tagi waayay baa nin guursaday dabadeedna markuu guursaday baa gabadhii de way dhagalaadahay marka habeenkii hawsha la galo ama Champions League la ciyaarayo ciyaarta de isfahan baa loo baahan yahay sax gabadhii dhagahala ay bushiri de sidii wax ugu faantay habeenkan buu siyaado ciyaarta la bilaab aad israkibtaan de dabadeedna hawsha baa la bilaab markii ugu horeysay ma garan buu baal sameyn saa uga dhig دعم ساوي ده في مركزتي لأنه مركز صادرة بال كوبيتها وصاو قدي مركزتي سجاشن كي مركز بنت سايري السوق اللي حيطه أنا بشرب صاف ستيري gabadh imaarataad qabtay aad soo furtay يا أدوم كاشة كين سايو وحلي هذا إنك يا هبل الماني والبا أول كوي حالي تشيري gabadhan aan qabay aad soo furtay waaryaa war gabadhu ninkii hore ee qabi jiray haday ka sheekayso oo ay isaga ka sheekayso taa Cabdilaahi cashadu soo qaadi jiray Cabdilaahi habeen goor dambe imaan jiray Cabdilaahi isagu weelku ila xali jiray miyaad garanaysaa may garan maayeen way kula hadashay gabadhu si sarbeeba bay kula hadashay si dadban iyo si kale ba kula hadashay gabadhaas way kugu dulman tahay iska gabadhu sideedaba haday ninka hore ka sheekayso way kugu dulmantaa gabadha iska furayta iska furayso hadii kale daa hayso wallahi loo yaabi wallahi anik ma waanayo ya orod waxba ma dulmanay waxaad weeyday waxaan sheegaya hablii taraawiixda ku soo marmarsoon jiray taraawiix dambe soo aadi meysaan corona dhacay dad masaajidka isugu imaan maayaan qof waliba xaafadooda ku tukanaya
miyo gabdhaha aad uga baqay magaalada bari la keeno xanuun iyo mooch wax loo keenay dabadeedna gabadh bay isbarteen ninkii reemigan waxa lagu yiri gabdhaha magaalada iska ilaali markaad ugu yaraatay fashion baad qaadaysaa ama qof aadan dhalin baa lagu oranayaa adaa dhalay dabadeedna ninkii soo hablaha uga baqayo inaan la kulmay maalinta dambe ay wada ballameen gidaar bay ku ballameen inta mool bay iska barteen beel bay isugu yimaadeen gabadha magaalada oo gabadh yar bituuto una weliga aragoo de qurux loo nimca oo meel walba kuskuusa dabadeedna suulo fadhiyo ma gabadhi gacane halka caloosha uu ka taabsiyay gabadhi caloosh yar buuranta gaasuu waxay nimca uurkan midda kale nimca menaga uur 5 bilood ay soo qarin waxa 5 bilood inagu laba habeen bin wada hadlay midda kale ma qofaad saarteed weeydi magaalada xamaalintii waa joogto oo tuugti baa joogto ma ragaa saar aniga ma si aad ii dishaad garow geebigiis waa qarqar buu saaro saas oo kala bad saytu war walaal maaha gabadhi waa war walaal maaha anu midda kale anu maxaan ka dilay midda kale waxa 2 bilood baan anu ku hadlay 5 bilood miin iskooga geebigiis oo imbu ku waa dadna nigi magaalada